السلام عليكم كلان وعنا أصحابي كسو دوادا قالنka maanta iyo muuqaal cusub fadlan hadii aad nagu cusub tahay channelkana subscribe saar siina share garay like tana ka ilaawin si dhiirigelin ugu noqoto mahadsanidin muuqaalkeena maanta asxaabay waxaan kaga hadli doonaa dhacdooyinka ugu muhiimsan ee ku jira jiska labaad qaybtiisa koowaad ee filimka Dowladda Cusmaaniyiinta dhammaanteen asxaabay waxaan xiiseynaynaa jilayaasha cusub ee ku soo biiray filimka iyo doorarkooda ku aadan gaar ahaan Kamboolaad Arsalan kaas oo ka soo muuqday bandhiga ATV isaga iyo sidoo kale jilayaal kale sidoo kale waxaa idin soo bandhigi doonaa maxaa ka run ah bandhigaasi iyo shaqadiisii filimka sidaa darteed muuqaalkeena maanta waxaa idinkugu soo gudbin doonaa macluumaadyo intaan ka badan fadlan la dhamayso sidaa wada ogtihiin asxaabey tan iyo markuu dhammaaday filimka waxaa guud ahaan dhammaaday dhacdooyinka jiska koowaad sidoo kale waxaa cad qaabka jilayaasha inuu aad wax weyn isaga beddelay xagga shaqada iyo xagga da'da marka la eego labadaba sidaan horey idinkugu soo sheegnay muuqaalkii ka horreeyey qaar ka mid ah jilayaasha waa ay isbeddeleen muuqaal ahaan sida Cusmaan oo la yimid muuqaal aan la mid ahayn midkii looga bartay intuu soconayay jiska koowaad halka Donhar uu isna la soo baxay muuqaal cusub inkastoo muuqaalada aysan la xiriirin da'da haddana waa habka ay ku jiri doonaan doorkooda jiska labaad dhinaca kale dhacdooyinka kale ee la filayo waxaa ka mid ah in Baalaha Khartoum ay uur u leedahay ama uur u qaaday Cusmaan sida aan wada ognahay Baalaha Khartoum uma aysan dhalin wax caruur ah Cusmaan tan iyo guurkoodii jiska koowaad laakiin taariikh ahaan Baalaha Khartoum waxa ay Cusmaan u dhashay wiilkiisii koowaad Calaaudiin Cusmaan taas oo ka dhigaysa dhacdooyinka ugu muhiimsan ee ku jira jiska labaad inay qayb ka yihiin maadaama ay riyadoodu tahay in ay reebaan dhaxal si loo dhammaystiro kacdoonka uu bilaabay Cusmaan aabihii ninka lagu magacaabo Ertugal laakiin arrinka Babsey iyo suurtagalnimada uu kaga soo muuqan waayay bandhiga jiska labaad suurtagal ma tahay inuu guud ahaan ka maqnaado jiska labaad maya suurtagal ma aha sababtoo ah waxa uu ka mid yahay jilayaasha ugu muhiimsan ee aas-aasiga u ah jiska labaad ee Kurlis Cusmaan tusaale ahaan Ganduus muusan ka soo muuqan bandhigii dhawaan ATV uu soo bandhigay taas nama tusayso inuusan qayb ka ahayn filimka Dowladda Cusmaaniyiinta gaar ahaan jiska labaad waxa uu ku leeyahay door muhiim ah uu kaga soo muuqan doono macluumaadyo intan ka badan waxaa idinkugu soo gudbin doonaa muuqaalka xiga fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe saar siina share garay like ta ka ilaawin si dhiirigelin ugu noqoto mahadsanidin